kaasi wuxuu wariyaheena Aweys Maxamuud Jilacow oo ku sugan magaalada Muqdisho iminkana Baydhabo safiirka UK u qaabilsan Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo isagoona halkaasi kulan kula qaatay madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan waramuurta ku saabsan waxa magaalada Baydhabo inooga soo diray wariyaheena Hussein Ali Geesey wafdi uu hogaaminayo safiirka Soomaaliya u qaabilsan dalka UK Ambassador Neil Wigan ayaa soo gaaray magaalada Baydhabo socdaalka wafdiga ayaa ku saabsanaa sidii loo xoojin lahaa amniga dhaqaalaha iyo xiriirka wanaagsan ka dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo dawladda UK booqashada wafdiga kadib ayaa waxay kulan la qaateen madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan kulanka oo albaabadu u xirnaa saxaafaduna ay dibad joog ka ahayd ayaa wixii ka soo baxay waxa saxaafada uu aqriyay afayeenka madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Nuuruddin Yuusuf Abuukar magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa shir ku wada qaatay oo shir qaybo kala duwan ah oo saddex gees ah ku qaatay wafdi uu hogaaminaya safiirka UK Soomaaliya u fadhiya waxaana lagu hadlayay sida amniga loo adkeyn lahaa arimaha dhaqaalaha ay dawladda UK uga caawin lahayd dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan Soomaaliya laakiin gaar ahaan dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya deegaanada ay ka taliso sidoo kale waxa jiray wafdi ka socda Britain oo la yiraahdo DVD oo hogaaminaya David oo asigana ka hadlay arimaha abaaraha iyo sida dadka dib loogu dejin lahaa loona heli lahaa dib dejin loo sameyn lahaa loona caawin lahaa sidoo kale sidii loo qodi lahaa ceelal loogu sameyn lahaa dadka abaaraha soo barakaciyay goobaha ay kaga sugan yihiin dalka mise goobaha hore u degnaayeen ay ku sameyn doonaan ceelal sidoo kale in webiga Shabeelle qodid lagu sameeyo asiga laftirkiisa la qodo si biyaha webiga looga faa'iideysto wafdiga uu hogaaminayo maanta soo gaaray uu hogaaminayo safiirka UK ama Britain waxay shir gaar ah la qaateen madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya mudana Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo wasiir qaar marka arimaha looga hadlayna taas bay ahayd Koonfur Galbeed ayaa dadaal ugu jirta sidii ay u xoojin lahayd arimaha ammaanka iyo dhaqaalaha ee Koonfur Galbeed Hussein Ali Geesey RTN Baydhabo